بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waa janalkan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka. Dowladda Mareykanka oo filisay xayiraadihii uu ku soo rogay madaxda Soomaaliya kadib dib u dhacay doorashada warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaan faaqidi doona intaad barnaamij wareedkayaga daawan doontaan. Wararkii ugu dambeeyay doorashada kursiga uu macallim u tartamayo irajadiisa inta ay leegtahay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan aan iraade doorashadii beledweyne oo dib loo dhigay sababtii ka dambeysay ayaan idiin soo baahin doonaa NATO oo war xasaasi ah ka soo saartay duulaanka Ruushka ee Ukraine kadib shir degdeg ah. sidoo kale waxaan idiin soo baahin doonaa xogtii ugu dambeysay ee dagaalkaasi iyo halka kala joogo iyana waan idiin soo baahin doonaa xarakada Al-Shabaab oo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qaybo kamid ah kula wareegi doonta xoog arintaasi ayaan faaqidi doonaa qodobadii nagu soo kordho ayaad barnaamijka intaan ku guda jirno ku daawan doontaan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar muuqaalkana leegare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan. haddii aad hore inoola joogtaan aad baan kaaga mahadcelinayaa. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay wararka aan ka helayno ila sirdoona ayaa saraakiil ka tirsan hay'adda amniga Soomaaliya ayaa xaqiijinaysa cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay isku dayaan in ay qabsadaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. weerarkan oo la sheegay in uu dhici karo 5 bisha Maarso ayaa waxaa lagu waramayaa in Al-Shabaab ay doonayaan in ay ku beegsadaan 3 degmo ee kala ah Yaaqshiid, Hilwa, Dayniile qaybo ka mid ah degmooyinkaasi ayaa hore u ahaa meelo amnigooda xun yahay iyadoo Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin xilliyadii habeenka ah oo lagu arkay qaar ka mid ah dagaalyahanadooda. inkastoo Al-Shabaab aysan inta ay qabsanin ku nagaan karin degmo ka mid ah magaalada Muqdisho, haddana qorshahooda ayaa ah in ay heestaan muddo saacad ah si ay ugu noqoto guul maskaxeed uguna ceebeystaan dowladda fadhigeeda yahay Soomaaliya. toddobaadkii la soo dhaafay ee bilowgii toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday xarumaha degmooyinka Kaxda, Hodan, Boondheere iyo xarumaha ciidanka oo ku kala yaala degmooyinka Dayniile iyo Yaaqshiid. waxaase ugu khasaaro badnaa weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday xarunta degmada Kaxda oo Al-Shabaab ay la wareegeen kana kaxeyseen 2 gaari oo ciidamada booliska ay lahaayeen iyadoo markaasi dhismihii halkaasi ku yaalay dhulka ay la simeen. dhinaca kale waxaa maalmahan soo kordhaya dilal iyo qaraxyo ay Muqdisho ay ka geysanayaan kooxda Al-Shabaab laguna bartilmaamsanayo xubnaha dowladda federaalka iyo cid kasta oo la shaqeysaba. tan iyo markii ay si rasmi ah guud ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu bilowdeen doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka waxaa kordhaya weerarada tooska ah ee kooxda Al-Shabaab ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka. weeraradan ayaa Al-Shabaab ay ku beegsanayaan xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saldhigyada ciidanka ayaa muujinaya habraaca dhinaca amniga ah iyo in hay'adihii amniga ay ku dhex milmeen arrimaha doorashooyinka taasi oo kooxda Al-Shabaab u sahlaysa inay beegsadaan xarumaha ay bartilmaameedkoodu uu yahay. daawada weli waxaad daawanaysaan barnaamij wareedkayaga. markana haddii aynu eegnana dowladda Mareykanka ayaa fulisay xayiraadihii uu ku soo rogay madaxda Soomaaliya kadib dib u dhac ku yimid doorashada dalka. dowladda Mareykanka ayaa jimcihii mamnuucday in mas'uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo Soomaali ah ay u safraan Mareykanka iyadoo ay ku eedeysay inay waxyeeleynayaan hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadaha fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib u dhigtay doorashadii baarlamaanka 15 Maarso taasi oo ahayd in la soo gabagabeeyo jimcihii shalay. go'aanka Washington ayaa yimid kadib markii lagu guuldareystay waqtigii ay qabatay madaxda Soomaaliya in ay ku soo gabagabeeyaan doorashada golaha shacabka oo ahayd 15 February. hadda waxaan ku soo rogaynaa xanibaado fiisa ah iyadoo la raacayo siyaasadda ka dhan ah tiro ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo shakhsiyaadka kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda ishor istaaga ah ayuu yiri xogayaha asigoo markaasi ku sheegay bayaan ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. xogayaha ma uusan shaacin magacyada shakhsiyaadka balse waxaa la rumaysan yahay in si gaar ah ayaga loogu wargeliyay doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii November ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha soo xulaya
275 xubnood ee golaha shacabka ayagoo dooran doona madaxweynaha cusub waqti aan wili la cayimin. kooxda Al-Shabaab oo inta badan weeraray iyo qaraxyo ka geysatay caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale caqabad ku noqotay doorashadan, waxaana bartamihii bishii hore ee February weerar ismiidaamin ah lala beegsaday bas ay saarnaayeen ergooyinka doorashada, waxaana ku dhintay ugu yaraan 6 qof magaalada Muqdisho, inkastoo ergadaasi wax dhaawac ah aysan soo gaarin. weli waxaa daawanaysaan barnaamij wareedkayaga. markan haddii aynu eegnana Beledweyne waxaa dib u dhac ku yimid doorashada 6 kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya, kuwaasi oo lagu waday in maanta lagu qabto magaalada Beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee Hirshabelle. qoraal ka soo baxay guddiga Hirshabelle ayaa waxaa lagu sheegay in arrimaha farsamo awgeed ay sababeen dib u dhaca doorashada maanta lagu qaban lahaa halkaasi. guddiga ayaa sidoo kale isbedelkan ku wargeliyay musharaxiinta tartamayay ee guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. guddiga doorashada Hirshabelle waxa uu ku wargelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo musharaxiinta in dib u dhac ku yimid qabsoomidda doorashadii loo madalsanaa in maanta la qabto sababo farsamo awgeed, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga doorashada Hirshabelle. kursiga 6 ah ayaa kala ah hoob 6, hoob 22, hoob 3, hoob 32, hoob 252 iyo hoob 68. waxaa lagu wadaa in biri ay qabato doorashadooda sida uu qorshuhu yahay. sidoo kale kuraasta mid ka mid ah oo isha lagu hayo waxaa u tartamaya afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo maalmo ka hortagay ama ku soo laabtay dalka iyadoo marsii horeysa loo qaaday dalkaasi Turkiga dhaawac soo gaaray daraadii. si kastaba dib u dhacan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan waqti culus lagu kordhiyay jadwalka doorashada golaha shacabka Soomaaliya, waxaana golaha wadatashiga qaranka uu isku raacay in la soo gabagabeeyo 15 bishan soo socotay ee Maarso 2022 haddii lagu soo gabagabeyn karay. markan haddii ayna eegnana Daahir Maxamuud Geele oo ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayay dib u dhac ku yimid doorashooyinka golaha shacabka oo qorshuhu ahaa in la soo gabagabeeyo Jimcihii shalay. Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay in wax duruuf ah oo sababi kara in doorashadan dib loo dhigo aysan jirin, isagoo noqday bayaankii xalay ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu shaaciyay in 20 cisho lagu daro doorashada. musharax Daahir Geele oo mar ahaa afhayeenka midowga musharaxiinta ayaa sheegay in cagajiid badan oo sababay in waqtigu uu dhamaado ay sameeyeen madaxda golaha wadatashiga qaranka, isagoo cadeeyay in ay aad ugu xun yihiin dib u dhaca mar kale ku yimid doorashada dalka Soomaaliya. doorashooyinka dahday waxay dalka gaarsiinaysaa meesha uu maanta joogo. meel kasta oo dadkeena joogo nolosha ayaa aad ugu adag. doorashooyinka ayaa rajo abuuri lahaa oo keeni lahaa hoggaan wax bedeli kara sidii hore, ayuu Daahir Geele hadalkiisa ku sii daray. waxa uu codsaday in doorashooyinka la dejiyo. aadna waxaan ugu xumahay arrintii xalay ka soo baxday golaha wadatashiga kasoo yeeray, waxaana dalbanaynaa in dib u dhac dambe uusan dhici doonin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. golaha wadatashiga qaranka oo ka kooban ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda goboleedyada dalka ayaa xalay ka shiray arrimaha doorashooyinka, waxa ayna kordhiyeen waqtigii loo aseeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada oo ku eg 15 bishan oo Jimcihii shalay ay ku beegneed. golaha ayaa go'aamiyay in 15 bishan soo socota la soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka si loo aado doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dalka. ilaa iyo hadda waxaa doortay kalabar xubnihii baarlamaanka dalka, waxaana dhiman oo aan weli la soo dooran tiro aan ka yareen inta la doortay. guud ahaan warkii aad kala socoteen janalkan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka wanaga inta. aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo janalka subscribe inoo saartid, muuqaalkana like gare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan. haddii aad horey noola joogtana daawadaad baan kaaga mahadcelinayaa. intaan ku kulmi doono muuqaalkan kiisa xiga, rabbi idinkii nabadgelyo.